fanka ku dhex wareeray anigu fanaan mi youtuber baan ahay mid fanka ku dhex wareeray oo rag ay fanka isla soo galeen fanka isla soo galeen 10 sano ka hor weesay fankii uu ku wareeray wax sidan oo dhalinyarada ka boodboodsiyo la imaan waayay gadaalay dambe hoos u aaday waxaan arkayba TikTok la wareejinayo oo leh youtuber u baahanaa inaan karbaasho youtuber iso tilmaamo youtuber maxaa ka rabtaa fanaana tahay maxaa fanaaniintan kale aad maaragtaa hadii u baahan tahay inaad beef la samaysid ama aad la xifaaltid u raadi weys 10 sano shahaada haysataa fanka aad dhex taagantahay adaba urdi youtuber waxa raadinaysaa inaad la xifaaltantid youtuber ka naftirkiisa ayaa jawaab sana dhan waxa noqday miya lo baad kulis taagan yahay 10 sano wuxuu soo waday hal baad lagu lisawaaye marka taasna waxa dhigi karnaa waa wax oo إلا أنت أصلاً قف أنت أصلاً تسوح ماله أما إلا أنت أصلاً فنك كجري إن هالبعض يقول السنة ويحسين أما ما أنا أهنت إذا مفكرة أهنت إذا أديك داونا أما أديك دقي سنة واسكا معقول إنه سكو فكرة أهن أما أنكر الدولنا لكن أنا أهنت إذا بقول كيف بقول ما أمي سنة إلا أنت طبعاً سنة نفنان هاي إن أمات ويحسين وحداً هالبعض يقول بقول كيف بقول ما أمي سنة haddana wuxuu ka hadlay isma qabsan karaan oo yiri youtuber iyo fanaan taas bint ismaan boqolkiiba boqol waa dhigi karaan ahantida sababtoo tahay isku shaqo maahan wax isku shaqo yihiin ma laakiin qofka markii fanaan uu yahay ama fanaanka isku shaqo yihiin waa macquul in ay isqabsadaan ama oo wax ka dhaxeeyo laakiin waa macquul xitaa youtuber kale inuu isqabsadaan wax ka dhaxeeyaan ama wax dhaxmaraan waa wax boqolkiiba boqol badan isku dhacaan laakiin laba qofood oo kala gooni ah lama dhigi karo waa haddii isku shaqo ahayn waa isku dhacaan way adag tahay sababtoo taas isku shaqo maan si haddii la fiirsana ninkan waa dhan fanaan oo ka yahay dhan wuxuu ka yahay youtuber marka waa arrin la dhigi karo dee waa ninkan dhankiisa fanka ku jira oo heeso fara badan soo qaaday ilaa adiga 6 qiyaas ilaa 7 hees ilaa 5 hees weeraan adii meelahaas inuu soo qaaday jecelahay marka arrintan siyaabooyin fara badan bay ku bilaabatay dagaalkooda ama sida dad fara badan ay sheegayaan in oo ninkan Instagram ka soo qaaday ninkan fanaanka Whizbi leeyin heestiisa oo screenshot inta ka soo qaaday oo soo saaray Instagram-kiisa markaas oo amal ku soo qaaday hadii aan reaction ka bixin ma qof ku daawanay malahan marka arintaas ninkan aad iyo aad u carwada la yiri ama dad far badan ay ka falceliyeen marka waxyaabaha dagaalkooda dhaliyay ay kamid tahay boqolkiiba boqol waana arin aad iyo aad looga xumaado taas hadii la fiirsho sababtoo tahay adigoo fanaan oo maanta ilaa intaas sano 10 sano oo garaan ku jiray dhanka fanka hadii maanta oo youtuber kala hadii ku dhaw ama hadii aan ka soo bixi reaction qof ku daawanaysa malahan waa wax aad loogu xumaado boqolkiiba boqol marka heestan Garbashay asaas uu soo qaaday isigana hees kale uu soo qaaday isigana fanaankan youtuber kan CUSUB oo isna ku Garbashayo marka waa hawada ismarsanayaan Garbashay oo inaba caadiyin oo la dhigi karo laba qofood wix walba hubkooda ay haystaan labadoo qofood eeba mid walba hawada ay isku marinayaan marka waan arki doonaa arintaas meeshay ku dhamaan doonto ama qofkii noqono qofkii kii awoodiisa ama powerkiisa meel la soo baxo ama raganimadiisa meel la yimaado laakiin ayaantan waxa aad iyo aad baraha bulshada ugu soo batay ama Soomaalida aad ugu soo batay isqa qabsiga labada qofood ama labada qofood isqabsigooda waxa arintaas keenayna mana garanayno in laba qofood ay isku qabtaan marka waana arin aad noogu cusub marka waxa aad loo arki jiray ama aad Soomaali soo baday jiray in ay youtuber kale isku dhacaan ama fanaan kale isku dhacaan laakiin laba qof aan isku shaqeeyeen ama laba qofood laba kala wada marto in ay isku dhacaan ama wax isku keeni karo ma garanayno marka hadaan ugu cusub tahay noo soo bir kamid noqo kumanaaka kun aan ugu xiran janaalkeena si muuqaal baan soo gelino kugu soo dhaco kambalay kana furo subscribe na saar video noo like next video iyo waxaan leeyahay bye bye